هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا كرر على قرينايا انت صداحي waxay ahayd inaan 8 oo soo galo laakiin systemkii aan rabay inaan isticmaalo ayaa xoogaa aan fadhin marka caawisaan ku balansaneen buu waxaan kala hadlayaa shuruucda caalamiga ah ee ka tirsan dhinaca lacagta lacag waad ogtihiin laydin sharxi maayo muhiimadeeda lacag maxay tahay lacag waxa waaye waddan walbaba wax uu leeyahay adduunka oo dhanna lagu heshiiyey lacaga caalami ah ayaa lacaga gudaha dalalka u gaar ah ayaa jira waxaa jira suuqyo iyagana lacagahaas ku shaqeeya oo money exchange la yiraahdo waxaasoo dhan ayaa jiro saas la ajligeed waa waxa nolosha dunidu ku kala socoto lacagta waa saldhigga dhaqaalaha adduunka guud ahaan iyo dal walba sidoo kale lacagtu waa saldhigga dhaqaalaha adiga shakhsi ahaantaada qoyskaaga iyo qof ahaantaada haddaba hadday lacagtu sidaas muhiim u tahay maxaa adduunyadu ku heshiisa sidee bay lacagta kugu soo gelaysaa si sharci darro ah maxaase sharci darro ah marka lacagtu ay ku soo gelayso bini'aadamka duniduu ku nool yahay xuduuduu kala leeyahay sharciyo guud ay ka midaysan yihiin adduunka iyo sharciyo gaara ayaa jira haddana system kasta oo waddan kasta lagu maamulo ama dowladnimadiisa ay ku dhisan tahay wuxuu leeyahay shuruuc u gaara lacagaha qaabka ku imaanayaan qaabka kugu soo galayaan qaabka la ogol yahay inay kugu soo galaan qaabka reeban oo marnaba aanay kugu soo gali karin waxaan wax yar taabanayaa intaana qodobka hore u gelin maxaa kalifay inaan qodobkan sharxo maaha inaad xoolo tihiin oo dad xoolo ah oon waxba kala garanayn aan la hadlaayo ama idinka dhigaayo ama idin haysto ma aha waxaad ogaataa qof kasta oo sidaydoo kale ah ama saxaafad ha ku jiro ama xuquuqul insaan ha ka shaqeeyo qof walba oo isbidaya cilmi iyo aqoon qof kale oo ka aqoon badan ayaa ku jiro dadka oo la hadlaayo marka waxaan ka afeefanayaa inaadan u qaadanina inaan idinla hadlayo sida dad xoolo ah waxba garanayn laakiin waxaan rabaa inaan ka digo khatar fara badan oo Soomaali ahaan annagana qusaysa oo dhinaca lacagta qusaysa haddana maalinta ka dambaysa soo kordhayso okay marka ama waddan sharci la joog ama waddan aan sharci lahayn joog waxa ku qusaynaya shuruucda caalamiga ah adduunka oo dhan ku heshiiyey haddana waddankaaga hadduu sharci dowlad xumo ama dowlad la'aan ama maamul habacsan iyo uu leeyahay stiil waa inaa ilaalisaa shuruucda caalamiga ah tii waddanka xataa dowlad jira taas laajligeed ay muhiim ku tahay inaa isla fahamno waxyaabaha muhiimka ah okay maxaa muhiima marka waxaa muhiima lacagta markay ku soo galayso inay kugu soo gasho qaab sharci ah maxaa ka mid a tusaale marka oo idin siin karaa tusaale waxaa idin siin karaa lacagta aad shaqaysato kale waa xoogsataa waa xamaalataa xooggaaga wixii aad ku shaqaysatay ayaa lacag ku qaadataa waa lacag sharci ah markaad shaqaynaysid meel baa u shaqo tagtaa ama furdadaa ka shaqaysaa ama suuqaa ka shaqaysaa ama baqaar baa ka shaqaysaa ama dukaan baa ka shaqaysaa ama meel baa ka shaqaysaa meeshaasna qof kale iskale qofkaas wuxuu hayaa wax la yiraahdo maxay ahayd toonay bay system uu leeyahay qaabka mushaarka ku bixin lahaa ama dowlad ha ahaado ama hay-ad ha ahaado ama ganacsada ha ahaado bay system uu leeyahay bay systemkaasuu kugu siinaa haddaa kaash ku heshiisin kaashu ku siinaa laakiin soo caday lacagtaas haddii lagu dhaho
meesha ka qaadato waa caddahay baqaarkaasaa ka shaqaysaa dukaankaasaa ka shaqaysaa hay-addaasaa u shaqaysaa waa caddahay talabaad maxaa waaye talabaad waxaa waaye hay-addaa u shaqaynaysaba adaa iskalabo dukaanaa leedahay kambaniyaa leedahay shirkadaa leedahay isgaarsiin meherad baa kuu furan ayadana still bay systemaa lagaa rabaa bay systemkaas waa lagu kala duwan yahay maaha wax walba inaan ku sadgarayno dalalka anaga hadda aan ku noolnahay ma aha ana waddankaygan kusoo noolaa jira anoo weynaan ka imid oon ilmo ahayn bay systemaa jira mushahar shaqaalaha qaab lagu siiyaa jira okay bay systemkii ayaad maxay ahayd toone ayaa isticmaalaysaa waddamadan oon joogno bay systemkooda warqadaa raacsiisan xagga la idhi maama please thank you maama waxaa raacsiisan warqad oo la yiraa bay slip amaba warqaddii caddaynaysay inaad mushahar qaadatay shan iyo intii aa qaadatay haddii canshuur laga jaray waddanka oo mushaharka uu dhan yahay wax canshuur laga jaro dalalkan waxay leeyihiin wax la yiraa minimum wage amaba income-ka ku soo galaayo ugu yaraan ayay leeyihiin iyo intaas waa ka badan karaa intuu doonoo noqon karaa badashada uu kordhayo maxayto lacagtaada aa saacaddii ku shaqaynaysid xaddi male wax kastay noqon kartaa boqol ay noqon kartaa oo dollar $200 saacaddii ay noqon kartaa 300 ay noqon kartaa laakiin si aan xuquuqda dadka bini'aadamka ee shaqaalaha ah loogu xadgudbin ayaa waxaa mar walba lagu heshiyaa hay-ado kalena ay dusha ka ilaaliyaan minimum wage waxa la dhahay amaba incomekaaga mushaarkaaga ugu yar ood ku shaqay karto haddii oo cunugu yahay ilmo weli iskuul dhigta wuxuu leeyahay xaddi go'an hadduu yahay qof qaangaara wuxuu leeyahay xaddi go'an laakiin xaddigaas ka yar qofka lama sii karo ya laakiin anigu ujeedkayga maaha inaan minimum wage hadda sharxo asaata tusaale idinka soo qabdana okay wixii markii lagu siinaayay minimum wage hadduu yahay waxaa jiro heer aanay canshuurta ka go'aynin oo canshuurba aan lagugu lahayn inaad bixiso tax oo dowladdu kaa fasaxday haddii aad intaas qaadato saacaddii marka maxaa lagu dhufanayaa waxaa lagu dhufanayaa inta saac oo wiigii aad shaqaynaysid like wiigii 16 saaca shaqaysaa ama 24 saaca shaqaysaa ama waxaad shaqaysaa 32 saac amaba waaba overtime aad shaqaysaa 40 saacadood aad shaqaysaa halkaasaa lacagta lagu xisaabaa qaabkaasaa loo xisaabaa waxaa qaabka loo xisaabaa qofka marka mushaar la siinaayo 365 iyo bar maalin oo sanadkii ah horta la xisaabaa marka la xisaaba waxaa loo qaybinaa intaas waxaa loo qaybinaa 24 bilood aniga accountant bihi dadka accountantiga iyo lacagaha iyo financial sectorka ka shaqeeya ayaa arrintan qabiir ku ah laakiin aqoon guud waxaan ka haystan baan barnaamijka rabaa inaad kugu shaqeeyo markii loo qaybiyo wuxuu noqonayaa 250 week sanadkii loo qaybinaa haddana wiigii inta saac oo hay'addaas kula heshiisay ayaa lagu dhufanaa kadib mushaharkaaga ayaa la soo saaraa qaabkaasaa loo shaqeeyaa waa loogu baahan yahay marka in warqaddii pay slip lagu raaciyo mushaharkaaga waxaa loo baahan yahay waxaa la rabaa in si sharci ah loo caddeeyo lacagaha adiga ku soo gala oo hadhowti lacag si sharci darraa kugu soo gasho aanay kugu soo laaban ama aadan ku lug yeelan ayaa la rabaa maxaa marka sharci ah waxaa sharci ah hay-adda aad u shaqayso mushaarka aad ku shaqayso ma kaa gooy karto minimum wage amaba marka waxii ugu yaraa haddaad ku shaqaynaysay meesha ugu dambaysa ama lacagta ugu yar oo qofka qaangaarkaa ku shaqeeyo haddaad ku shaqaynaysay xataa sumuni ama dhururuq ma ka dhimi karto waa illegal inay lacagtii aad kugula heshiiso contractka ku saxiida aad ka dhinto waxaa kaloo illegal ah oo soomaalidan xataa yurub jooga ku arkay contract la'aan ma shaqay karto waa in contract aad ku shaqayso ilaahu 2,000 qofka ku heshiiya laakiin contract waa inuu jiro ay ku qoran tahay shaqadaasaan ku qabanaa 2,000 aan kugula heshiiya aad siinay waa in wax kala qoran ay jiraan
diinta islaamkana way weynaysay heshiis kastoo la galayo in la kala qorto so that waxaa sharci darro ah inaad ku shaqayso contract la'aan okay maxaa kaloo sharci darro ah waxaa kaloo sharci darro ah in hay-adda ama qofka ama dukaanka aad ka shaqayso oonan ku siinin warqadda payslipka oo caddaynaysa wixii aa adiga qaadanaysa iyadana waa sharci darro kale ya waa inuu ku siiyo markuu lacagta bangigaaga ku shubo ama aad kaash ku heshiiseen wuu ku siinayaa laakiin warqadda oo kuu soo qorayo oo inta lacaga oo ku siinayo ay ku heshiiseen baa waxaa ku qoran wax kaash aan ku siiyo ama bangigan ugu shubay ama jaag baan ugu diray waa inay kala caddahay xataa qaabka oo qofku ku siinayo intou ku dhaho waxaan kugu siinayaa bank kaash kuguma siin karo waa illegal kuugu soo qoro warqadda waxay ku qaadatay aamino minsoweeli lacagta waxay ku qaadatay kaash bangi kuuguma soo diri karo intou bangi kuugu soo dirana kaashay ku qaadato kuma dhihi karo suminina kaama dhibi karo waa sharci caadiya oo jira ay tahay annaga oo dhan inaan ku baraarugsanaano lacagtii saas sharci ku noqoto maxaa kaloo sharciya waxaa kaloo sharciya inaad baxdo oo lacag soo deysato waa sharci iyadana laakiin dayntaas waa inay qoran tahay oy kala qoran tahay oo heshiis kala qoran oo jiro hadduu heshiis kala qornayn hadhowti ooda cadday karin qaabkaad lacagta qofkaa u siisa haddaa cadday karto hadhow lacagtaada waa heli kartaa iyadana waa qaababka sharciga oo qofku lacag ku haysan karo lacag way daymi kartaa bangigayga haddaad ku shubto the best waaye because waxaa haysataa caddaynta inaad bangigayga ku shubto ah laakiin kaash haddaa u kala qaadatiin laysku inkiri karaa qarrafi qatacay galaysa barnaamijka ujeedadiisa intaan ma aha laakiin hadalkan ku tiirsasanaya maxaa marka kaleeto oo sharci ah waxaa kaloo sharci ah oo xaddi leh lacagta aad kaash u qaadi karto sideedaba ama bangiga ka soo saar ama maxay ahaydone ayuuto lacaga ayuuta ku gasho ha ahaato lacagta aad kaash ahaan la mari karto waddada dalalka agayna ma ka hadlaya aniga hadda dalkaana 20 sano ku noolaa kanaan ka hadlaya waddanka UK kaash ahaan uma qaadan kartid 1,000 gini ka badan may maqlaysaa 1,000 giniga sterlinka ah oo lacagta UK ka badan kaash ma lagugu arki karo mana qaadan kartid diyaaradna ma la kori kartid haddaad dhoofayso waa inay inta kaleeto kaar kuugu jiraan oo aad 1,000 kaash ah qaadataa 1,000 kaash ah ka badan dad badan oo qaata oo Soomaaliya dhibaatay ku mareen gabar waxaan xasuustaa arrinteeda ay soo gaartay 10,000 bay rabtay inay hidro kala dhufto u kala 7,000 ayay rabtay inay Birmingham kala dhufto waa illegal ka way fiican tahay qasab maaha inaad iskuul dhigata qasab maaha qof balaaya ka dhacda oo mutacallimada inaan qasab maaha laakiin mar walba way fiican tahay shuruucda waddankaaga ku nooshahay waddanka ku nooshahay oo Allah ku baday waa dhaqama inay lacagta marka haddii sidaas loo kala qiimeeyo dhaxal iyadana saas oo kaleeto aabbaha ka dhaxashay waa dhaxal iyadana waa lacag okay lacagaa bannaanka ka keensanaysa lacagtaas bannaanka aad ka keensanayso laakiin waddan kale ayaa lacag rabaa in laga soo diro ayadana waa inay wadiiqa soo martaa ama xawaalad hadday soo marayso waad aragteen 5,000 ya 5,000 wixii ka badan waxa loo baahan yahay shuruuc ka duwan shuruucda 200 iyo 500 iyo markaad barayso 2,000 ka badan markaa xawilayso ama adiga lagu soo xawilaayo wadamada Yurub oo aan joogno iyo reer galbeedka ayadana shuruuc kale leedahay America sharci gaar ay leedahay Australia sharci gaar ay leedahay Scandinavia sharci gaar ay leedahay halka sharci gaar ay leedahay meel walba sharci gaar ay leedahay ilaa qaaradda Afrika maxaa dhacay marka waxaa dhacday iyadoo weligeedba lacagaha la iska ilaalinayay ayaa waxaa sii adkaaday markii la qarxiyay labadii sarood oo dheereed ee Mareykanka ku tiilay markii la qarxiyay World Trade Centerka waxaa dhacday in adduunka oo dhan oo iska ilaaliyo lacagaha sharci darrada ah wuxuu dunidii ku heshiisay inaanan lacag lala baxsan lacag walba shilin walba meesha ku baxaayo in la ogaado taas waxay keentay in xawaaladaha Soomaalida xoog la saaro
aad loo kontrolo meeshaa wax u dirayso hortaad dirayso ciddaa u dirayso sababtaa u dirayso qaabkay ku baxayso markaa wax dirayso lagaa rabo bangiga lacagta markaa kala soo baxayso lacag xaddigeeda kunka badan markaad la soo baxayso lagaa rabo inaad geyso 2 ama 3 ID ugu yaraan 2 ID inaad geyso identification oo sawirkaagana ku yaalo oo waxaaga oo dhan ay yihiin like passport iyo travel maxaa la dhahaa travel license baaburka lagu wado something like that 2 ID okay okay maxaa kale oo marka sharci darro ka dhigaya lacagaha waxaa kaloo sharci darro ka dhigaya drugs haddaa gado kasoo qaad drugsaa gadaa aa ku lug leedahay maandooriyaa gadaa lacagta maandooriyaha maadaama maandooriyuhu isagu sharci darro yahay lacagta kasoo baxaysana waa sharci darro wax kasta oo sharci darro ah oo la ogolayn oo dalka mamnuuc ka ah lacagtii aad ka shaqaysato ayadana waa sharci darro dadka daraagiska gada waxay aad u qariyaan lacagta soo gasha badanaa waxay sameeyaan business kale ama ganacsi kale oo sharci ku registraysan ayaa ku laban lacagta way ka dhigaan inay businesskaas ka soo gasho haddii lagu qabto lagu ogaadana waa khatar I hope inaa intaas isla fahamno hadday marka sidaa tahay barnaamijka guulucdiisa usoo galaya oo 30 daqiiq ka badan inaa hadla ma rabo already waxaan ku jiraa 17 minute waxaan rabaa marka su'aal qof walba oo idaawanaya caawa su'aalna isweydiisaa rabaa marka lacagahaas aan kala sharxay oo sharciga iyo sharci darrada ah xagee ka galaysaa markaan qof iraaho waa ku baadaya waa waxa hadda internetka ka socda waana waxa aan aniga hadda u soo jeestay inaan dadka ku baraarujiyo gangiska ka kacay internetka dhexdiisa waxay sameeyaan blackmail waa kala darajo qaar PhD ay ku qaateen blackmailka iyo rikaatada inay dadka lacag weydiistaan qaarna waxa waaye weli waxay joogaan jaamacadihii ay ku jiraan qaar college ay joogaan qaarna waxay dugsi sare marayaan qaar dugsi hoose dhexe marayaan qaarna dugsiga hoose marayaan qaarna siiliga iyo xanaanada ay ku jiraan qaarna hadda la recruit gareewaya sidaan barnaamijyadii hore idin sheegaa lagu shaqaaleyn ku socotaa laakiin xaggee lacagahaasi ka galayaan maxay idin la tahay just fikira 2 second 1 second lacagtaas qofka blackmail lagu sameeyo rikaata lagu sameeyo ma sharci darra mase waa sharci commentiga ii soo qora maxay idin la tahay waa sharci darro cidna blackmail ma ku samayn kartid cidna rikaato ma ku samayn kartid ma dhihi kartid ilaahayow sirta ugu xun haddaad ka hayso ma dhihi kartid keen lacag marka haddaad nin tahay iyo haddaad naag tahay oo aad falkaas ka qayb gasho you are criminal aad tahay dambiilaad tahay waana in layska kaa celiya ummaddana lagaa qabto waana lagaa qabana waana in sharciga lagu marsiya soo ogaada waa mahadsan tahay waa mahadsantihin sharci darro waa of course فيكوني حسن وارنتا وشرعي ضر عبد الله محمد حسين ولا لا وارنتا وشرعي ضر ساس لاجل جيد وقاعدة صوماليدا مساكين تا اللي بلقرينايا باك مايل كاللي قسمينايا الركاتينايا ما أها لعجها الركاتة إنا بحسان نمنا وحركاتة ناقا وحركاتة إسلامي ووينا أنا وكلاها وحركاتة كو أنا قاعد نلعب بدنا وحركاتة كو أنا قاعد يرى وحركاتة ما أها هسيننا ماشى دون تكوكان ده وريا ماشى دون تكوكان ده قف كربا إنه أنت كبلاك مايل قرأي لعك السي هذيك له أبان كافة فينا الله يوحى هاي الصوت ده وريا this is imminent وانا waxa hada socda waaye guruubdan
ayaa hadda ka kacay internetka oo sameeya group kalena horay ahaayeen oo ay samayn jireen saas u ogaada saas u ogaada saas u ogaada waa illegal mana lagu rikaatay karo ma lagu rikaateyn karo way isgaranayaan ma magac dhabaaya laakiin way isgaranayaan tuugada ka dhex dilaacday internetka no mana rikaateyn kartaa qof soomaaliyana ma rikaateyn kartaa it's illegal waa sharci darro waa criminal activity waaye ama howlo criminal waaye oo dambiile waxa waa fal dambiyeed waaye never paid money to money distorted gangiska oo internetka ee dadka kusoo kaca haasiinina lacagada kuma laha qofka raba inuu wax kale oo badan ka ogaadana isoo wac aniga isoo wac anaa ogol si free inaan ku consulti kare aniga lawyer maahi laakiin aqoon guud oo fiicanaan leeyahay directionka ugu fiican oo ku sheegi kara ay cidda la xiriirayso don't do it don't hasiini lacag hasiini weliba haddaa waddan sharcigiisa hadda shaqaynaya aad joogto you have to report them nin ha ahaado naag ha ahaado habar ha ahaato oday ha ahaado wuxuu raba ha ahaado you should report them waa inaad report garayso waa illegal waan idinkugu celinayaa waa illegal waa sharci darro ma ogolo sharciga kay joogaan waddamada ay joogaanna ma ogolo maxaa adigu joogtana ma ogolo mana dhiibi kartaa war cunug haddii lagaa afduubto qof haddii lagaa afduubto xataa maaha inaad dhiibto ransom madax furasho lacagta la dhahay waa illegal ayadana soomaaliya oo waddankeena ah oo dowladdeedu hadda le maaragtay madaxa la soo kacayso mar walba waxaa illegal ka ahaa oo sharci darre ka ahaa ilaa haddana ka ah in kooxaha argagixisada ah la siiyo lacag madax furasho ah kooxaha burcadbadeedka ah markay afduubtaan maraakiibta iyo doomaha iyadana in la siiyo lacag madax furasho ah waa illegal laakiin haddana waa si dadbanaa loo siiyaa marka la isku mashaqoobo ilaa dowlad xoog loo inta weerarto soo furaysa meesha ma joogteen laakiin sharciga guud oo waddanka waa sharci darro in las bixiyo ransamaa la dhahaa madax furasho macaadallaah nin naag habar gabar wiil criminal ah oo dambiila ah oo internetka hal mugdiya soo dhex fadhiya oo raba inuu adiga ku rikaatayo iska badaaba xagguu ku jiraa kaas xagguu kaas ku jiraa kaas xagguu ku jiraa ha baqina don't be scared ha baqina waa sharci darro dadka in boqoshada ugu soo qoraan sidaan shaqadaan u galay waa lay soo diraa gabdhaha la rikaatayo waa ii soo diraan fariimahooda waa u kaydiya ayagana kaydsada ay dhahdaa meeshaan kaysaan ka furay kayskaasaan ku daraya qofaa waxaa loo soo qoray daawaa qaadataa marka waa ku shifaadii kale lacagdii hooyadaa ka shifaysaa ma jecli caayda laakiin doofaarada noocaas oo kaleetaa waa inaad iska celisaa waa inaad iska celisaa waa inaad iska celisaa waa inaad tiraahdo adoon iswareerin walaalo dawo haddaan qaatana daawada waxaan u qaatay inaan ku fayoobaado oo aan ku caafimaado haddaanan rabana maba qaato noloshaydana shaqo kuma lihin haddaad rabto waxaad doonto samee cirkaa dhulka isku keen geedkaad gaarto bara ka soo guro aa dhiibin lacagta oo kugu xudaynayo
اوكي عبد الله ما تسنت قفك الركعتده ولا waxaad tiri cabdulaahi walaalo waxa wax salaamaya marka waxaad tiri qofka rikaatada wada hadii intii lacagta loo diido oo qofkii dhibaato u geysto muxuu sharcigu ku ciqaabi karaa sharcigu wuxuu ku ciqaabi karaa maadaama sharcigu uu kala duwan yahay haysaska u badanahay kow inuu adiga ku rikaateeyo laba xagga uu ku weydiisto kooniya loo xisaabaa waa another case saddex inuu dhibaato ku geystay laakiin kuwan ma bahaba kuwa disable haba ku jira nin disable aw group dhan madax u ah hada hadlaa oo isku gaar ku fadhiyo hadaa wax awoodo ugu yeela lahay ugu suubsa lahay hadaa wax awoodo kama baqayaan kama baqayaan mana caayo wahay oo dambeeyay maama asal lagu suubsa lahay hadaa wax awoodo kuma rikaatay kara marka soo geed kaad gaarto mira ka guranaha galabta ugu dambeysay gabar ay soo dirtay text usas u rikaatay oo magaciisu ku qoran yahay iyo inbox wixii oo aniga ii soo qoran ugu rikaatayna oo walaashay in adeertay ku rikaatayna oo gabdha kale oo ii soo qoran ku rikaatayna oo iyada ku rikaatay geed kaad gaarto mira ka guraha la yiraahdo waxa kale oo kala dardaarmaya hadii qof uu blackmail ku sameeyo oo ku rikaatay mar walba horta waa la soo helayaa saacadii la soo helaa mar kasta as you can inta aad awoodo details kala public hada ku soo qora magacaaga ku soo qaado oo ku aflagaatay screenshot ku duubsi la socdo dhaqdhaqaaqis qofka inaan ku xidoonaha hadduu baqo yaa oo baqo oona magacaaga soo qaado stiil ka qaado oo ogtahay laakiin sifaha uu bixinayo inuu adiga ku wado stiil ka qaado dacwadaada xoojinaysaa because police will ask him who did you mean this yaa ula jeeda baa la leeyahay waxaan waxa u yaala su'aalo adag oo inuu ka jawaabo ay tahay marka saas u kala garta lacagta legalka ah ee tan illegalka ah gabdhaha Soomaaliyeed ee qurbaha joog single moms-ka u badan ee teerka ka soo shaqeynaayo ee nadaafadda ka soo shaqeynaayo ee xafiisyada ka soo shaqeynaayo ee qaarkood ay xafiisyada waaweyn qareenada yihiin oo qaarkood ay macallimiinta yihiin oo qaarkood ay iskuulada dhigaan oo qaarkood ay wariyayaasha yihiin sidaydoo kale oo qaarkood waxaaga yihiin whatever shaqo ceeb maaha noocaad ka shaqaysana lacagtaas ku soo galaysa waa lacag nadiif ah waa lacag legal way ku soo gashay qaab sharciyeed oo fiican abayde nadiif Yuusuf macaan waa ku salaamaya xabiibti kugu soo gashay qaab sharci ah kugu soo gashay waay ma aadan sameyn waxba marka qof asagu meel ku fadhiya gaari ee asaga batiisa hayso ee asagana xuquuqdiisa intuu soo gudbay dadkii kaleeto ku xad gudbaaya no hadduu naafa yahay markaan ka hadli doono hadduu naafa yahay naafanimadiisa in isaga lagu ixtiraamo dadka ku leeyahay oo lagu caayo laguna abiiso laakiin asagu naafaan ahayo xabad la yeeli maayo hadhow dadka uma abiiso karo way ka reeban tahay naafaha ama naafaha ahaane xabsiga waa tegay in haddii aad sane tahay sane iyo insane la kala yiraahdo sane iyo insane qofka marka dacwo lagu soo oogo psychologist loo diraa psychologist asaas soo kala sheegaa qofkan markuu dambigan galaya hada forever ma haya dambigan markuu galay ma sane buu aha ma insane buu aha macnaha miyuu wala oo miyuu xanuunsanaa oo maskaxdu ku xanuunsan ma kama xanuunsanaa laakiin lugahaan ka laabanahay gaarayaan ku fadhiya maskaxdaydana tamaam waay aqligayguna waa isiina inaan dadka aan blackmail gareeyo markaasna hadhow la xiri maayo because lugama qabo no sharciga taas ma aha ama luga qab ama ha qabin lagu prosecute garayna haddii lagu helo falka haddaana dambiila ma tahay falka lagu kaliyo will go to jail ama naafa ah ama ha ahaane إذ لا بنيه إلى حتى
insane haddaad oo maskaxda ka jiranta sa'aadan ummadda u baabi'in waa lagu wadayaa ma ku marmarsiyoon kartid aniga depression qaba aniga psychosis qaba aniga schizophrenic qaba aniga maxay ahaatona waxaan qabaa ishak kee kale bipolar qaba aniga kanaan qaba ma ku marmarsiyoon kartid because dowladda aad la joogto xal baa kaa saaran ah in ay daawo ku siiso ku takeer garayso lagu caawiyo haddii la arko xaaladaada maskaxda inay soo darsanayso ood naftaadana khatar ku tahay communitygana khatar ku tahay balse fiican iyo dhegeysta oo dadkaad la degantana khatar ku tahay adiguna naftaada aa khatar ku tahay waxaa lagu dirayaa xabsi isbitaal ah sectioninaa la dhahaa sectioninaa lagu samaynaa waa lagu section garaynayaa sharci kasta waddan walba ilaa soomaaliya waa qabay sectioninka lasareedka la geey jiro dadka marka la section garayo askarta inta soo wadaan inta saas waa marka lagu section garaynayo ilaa qofku waa wargafaa aniga maaha aniga xaal laga rabaa wadada marka askar iyo social service iyo dadka mental health team ku imaanaya dadka xanuunkiisa dhimirka la socdo dadka isku imaanaya haddii la arko inuu dadka khatar ku yahay isaga naftiisa khatar ku yahay ummadda kalena uu khatar ku yahay waa la section garaynaya laakiin xaq uma laha inuu dadka abuse inuu dadka blackmail ku sameeyo inuu dadka cyberbullying ku sameeyo xataa haddii uu on medication yahay or off medication hadduu dawada xanuunka maskaxda qaadanayo iyo haddaanu qaadanayn labadaba sharciga ma ogolo ma ku samayn karo qofka blackmail سلام الله يسمنا يا حبيبتي توك سلامة كل واحد سلامة هل ما يدين لك عليه الله يبقى يدين بديه يا بليس مركا يانا الله يسكس قجامن يانا الله يسدلمن يانا الله يسوحينا if you have mental health team هداقته confidentiality لدى حياته وإن إلى اليان تكتب لكن انت بدك أسوق شلاي معاي كرتد محدد بكرتد من نبي كرتد الشباب وايا من إيه كرتد الكليات على تعمل إيه كرتد المحرق تعمل إيه كرتد وحباي كورس تعمل إيه كرتد no whether you are sane or insane أما هذا ولا تاي هذا ولا لا ما بشر عدوات دينا دتك بدنا دتك نباتين جودها ودك مجوعان الجوعان دي بدأ ودك الجوعان مال في عن أو حلوة قبل الجوعان مركز إسكداية هبل أنا سكنها إيه ورير هبل إيه هبل في عن ولا شيء نو أنا حتى قفك ولا تاي أو في عن ولا له أو في عن سكست أو في عن دم بيجي جماعة إن لا يدافع معها اللي برسكوت قري هذا دم بقاله Soomaaliya sharciga barta kuna dhaqma qasab maaha ina iskuulla tagno kulligeen oo aan sharci baranno qasab maaha laakiin ku dhaqma sharciga ogolaada inaad rabtaa inaad sharciga ku dhaqataan ma ku noolaan kartaan sidii maxay ahayd duurjoogtii baciidkii iyo gorayacawshii oo kale iyo libaaxi iyo maxay ahayd toonay waraabihii iyo weerkii oo kale muu noolaan karno iyo dawaco dawac qayaanaaley بنا آدران هاي أدون كان ذات كمية هاي موادنين هاي ودن كان موادنا كان هاي كان جوجنا موادن كلام كان هاي حق أيان لنا هاي هذا قحوتة هاي شرعي أكو جوكتا بدكاس هذا قحوتة هاي شرعي كلا أكو جوكتا هذا الشيء بدن كقاعد شرعي كلا أكو جوكتا no وده كينيا سوق بتاع وده أمريكا ربطنا ذيك سكول بيستان ميا كينيا سوق بنا dalka ugu awooda badan dhinaca ciidanka militariga ayaan ahayn anaga Soomaaliyeed dal qurux badan oo sharaf leh ayaan ahayn waa soo gubnay waddankeena soo gubnay wadamo kale aan nimid haddana stiil dalalkan sharcigooda la socomayno hada waxaas wax xoolanimo qof dad xoolaa bas taasi ka suura gasha daadan u la socayn awal aniga aan ku hadlaayo هذا ميد اللي هقلها هاي example ما تقانا ميقا كونتراكت أو شرعي أيام كجرا ساعة طلع هذا اللي هقلها ما تقانا أنا كجرا كونتراكت الإنترنت كأوبر هذا أو فيرجن لاين إن أنا ضدكو أبيوس كونتراكت يا كجرا هذا أول قفكو أبيوس أنت أنا شرعي واي قبلنا وحن كجرا كونتراكت زوم كان استعماله كونتراكت ولا عادي بالكش أصلا أنا ذا كونتراكت ولا
small printing wax la dhahay oo sharcigan soo saxiixa another contract hay maxaa haddana ku jira contractiga gurigayga ilaan gurigayga kala dhaxad loo haya oo kirada hadda illegal activity intuu sameeyo oo bulin sameeyo anoo gurigayga joogo sharcigii guriga oo aniga contractiga aan kala saxiixana aniga iyo hay'adda guriga iskale way qabanayaan because gurigooda aan wax sharci darre ku sameeyo saddex contract ma tahay kii diiniga ahaa oo labada malaa'ig labadeeda garab saaran ayagana sharcigooda ilaahay aan kula xisaabtamo kaasaan adduunka ugu daranba oo qabrigana igu sugaa qiyaamana ii raacay haddaan dad halkan ku gardaraysto ama qof halkan ku caay ayadana waa laygula xisaabtamaa waa contractiga ugu weyn 4 contract ma tahay معيار بعد بقى والأدوية شرعية كل عندها 4 ساعة بين بديلة قال ما قيل كريم قرآن كنت لي درسك عد داركم هاد لي كرم موسيق مداري كرم حتى قرآن مداري كرم ولاد انت دار مداري كرم خبرت هذا كتاه شرعي قرآن قبنا marka adoo America joogo alagu buli garayha miya asal lagu baada asad la baxeen qof kale America kula joogtay adoo Europe joog aan nimanay naaga soo tashta waxa ku go'galaya oo ayaga dhanba circle-kooda ay inay adag ku tag lacag ka dhigaan black mail garayna sa hayad hemiya ayay sharcigaan hay hadii qiyaamo la aadahay sharciga Ilaahay ajre age sharciga adduunka looga ma baahne halkan adduunka Ilaahay kugu sii والله رب إنه تكون بتبدأ أديك أنا اللي قاعد شو ما استعمال ربطة قر ما استعمال ربطة وين قر ما ربطة أنا استعمش قر ما استعمال ربطة وقتين برنامج أفرت 5 دقائق خبطة خمرية هذا صدق هذا من رأيه دقيقة قسم لقوا عاجز مرة ساسو ogaada marka kamshka waa qaada youtube na waa galna intana waa ku jiraa share garaya umada la wadaaga marka aad soo galeysaan facebook iyo youtube haysa caayina caayido hadda kor aad sheega qofka bini aadamka karaamana waa leeyahay joharad wax leeyraana waa leeyahay shakhsiyad kasta joharad bay leedahay joharadda ka dilaysaa maxaa laga caaya qof walba qofka Soomaaliya kala qiimo badan ama kala fiican xagee ku kala fiican haddaan kala fiicannahay maxaa qayb annaga naga mid ah u soo bixi weydo dalka naga burburo badbaadin weyday lama fiicna kulligan isku mid ah sab oo burburka ee baaba aan maanta mudana haddaan annaga kala wanaagsanna oo qaar aan ku baxsano ay nagu jiraan maba baaba ay burburka na gaara iyo heerka naga gaara waqtiga oo nagu qaata maba nagu qaada lahayn ma nagu qaada lahayn liis waqtigeena si islaamnimadeena u sugnaato salaadihiina loo aqbalo qofkii adukaay asafoolkiiso weesadu ku taalo dad caaya xitaa waxaas what is the point salaada aad soo dukatay midda kale inaa gaaraysa in kale ma ogtahay بس قاعد أخرج افتراء تذكر اللي يراها أكفي عن هذا تذكير وينها السوشيال ميديا كجرة والتكنولوجيا دانك عنتنا إلى هاي السوق اللي قاب هيدين سو سميسين كفى إذا استقاب ونكسن كفى إذا وهو نكسن السوق الشارع قرحس قصة ما يستوى ولا قدر كمان شيء واحد قدر يسان كفى في صدق isugu aqli celiya qofka kale wuxuu ka raayahay noo sheego waa dhageysanayna sadii dhageysanaysa baa anagu dhageysanaya hay is dhageysano laakiin way saayayda karbash xalaala inta xalaal ka yahay karbash qodada rabtana cayse ko xalaasho xagga Allah dad caay rabtaay bal caay xalaala xagga lagu arkay tatla isla yaabna 5 minutes waxa rabaa inaan ka baxo 5 daqiiqo hadlaya أنه نقلنا وحكى فايدة
abuuska dhexdeena hala joojiyo stop cyberbullying qof laga yeelaya ma jirto qof laga yeelaya ma jirto anaa isu diray xil aan alla ii dirin ba aniga isu dira oo ah inaan social media soomaalida ku dadaala inaan ka dhigi karayo in kala maaqa laakiin inaan ku dadaala inaan ka dhigo meel si nabada ku isticmaalaan dadka iswixii farahay ka baxeen ogaada haddii lagu caayo waa hate crime haddii qabiilka aad ka dhalata la caayo waa hate crime waa cunsuriyad oo isku dara waa racism iyo hate crime haddii xijaabkaaga iyo qaabka aad u labisan tahay ama aad tahay xataa haddaad maqaaban tahay lagu caayo ayadana saasoo kaleeto waa hate crime waa dembiga dhinaca nacaybka wax kasta adduunka ka tabariya leeyahan wax ka tabari la'aan ah oo aan meel ay la qabsanayaan raka ay fuuli karaan aanay jirin ma jirto haddaa xanuunsan tahay waa xanuunsan tahay ilaahay ha ku caafiyo taqaatiirta u tag daawo doono dadkaa ku safaadeen ummadda kaa nabad gasho haddaa xanuunkaaga iyo waaye aragnimadiisa dadka uga sheekaynaysid oo dadka sidaadoo kale xanuunkaaga ou haayoo kale aad rabto inaad la hadlo that's fine taas waa okay laakiin dad ha ku abuse meeshaan bulin ha ku samayn haddaa xanuunsanta allah ku caafiyo dadka ku abuse la haddaad naafo tahay lugaha naafo ka tahay afka naafo ka tahay jirka kale naafo ka tahay adimada naafo ka tahay ilaahay ha kuu gargaara laakiin xuquuq buuxda alla ku siiyo في بني آدم ماذا قال لك سوي شرعي وكرف تاجنيا لكن أنا كنا دكتور ما أبيوش كرت ما بقوله جريك كرت الصايبة بقولي إنه كسبة كرت حقاقة إلى شو ومدى إلى هنا وحد قد بس حبسه ومدى عفاية بس أدي لك أبو أنت هذا هذا مسكحة حلو صنطة هذا مو حد قد بكرت أيضا هذه اللي هو برسكوت كرايا دعوت اللي هو سو محكمة دعوت كل شيء يجورك will go to jail jaalka waxaa aadaysaa dadka maskaxda ka xanuunsan loogu talagalay oo daawadiina halkaasay kaaga sii soconaysaa oo isbitaalka iyo waxaa ka aadaysaa wadamadan maxaa la sameeyey criminalka da'da age waa la dhimay UK 7 sano aa laga dhigay can you imagine هذا كنت سنة دافع يا أبر لحدنا سنة كسيد ولا تتعايا كنت وحلا قاعد يقعد طبعا جرا على قاعد يقعد سيد السوق وين سيد طبعا جر لحية طبعا جر ربيع طبعا جر سيد الله لا يوكي حتى ولا السوق قاعد عمل السوق وين اللي حرك كان عنده طبعا سنة تدبكوا لكن هذا وهذا شرعي عروفته أيوه هذا الجلايا كتبتري كلام جلايا وحلا جايبه ماشى جبنير كإلا جيل المحير إلا جيل المية نفط التداسي كلا يرد الماشى إلا جيل على كده لكن criminal age ما لا يريد هذا دورة سعته أو إلا قد يقشن صار كاس وحال أركض شنجر قدام بجلاه ولا يابنيه تذكر الوجادة مرنا حدود الكلالية مرنا وده بني آدم مر حدود ماذا الكلالية صد أنا مثلا أصل مسلم حام أوكي إسلام ماذا وين وحكار ربطه marka islaamnimada la dhaafo dadka kale oo aan islaamka ahayn iyo adiga marka la isku dhex bar iyadana waa inuu humanity-ga ee bini'aadanimada ay ka reebto dambiyada qaar ee cagaha iska daydaso sida xoolo camal aad meel ugu safaada maaha criminal age ayaa UK 7 sano maraya adaa duqaha rabtaa marka oo naag iyo nin ay inaad dulmiso 7 sano maraya war meel kaga fakarayso male crime ka aad geysato waa lagu xisaabtamaya hadaa daawo qaadato hadaa mental ill qabto wax kasta war xataa hadaa learning difficult qabto ama special need tahay bas special need ku soo galaya qofka oo naafada ah mar kasta qarinka waa ku qabanaya xabsiga liberty ma haysatid wax kuu fasaxay adiga oo sharciga ka dulbootiyo no ma jirto waxaas ma jirto inta si la kugu sheekaynaa هل هذه كل شيء كان بطاس سام واي إذا جيت كدراجة كوكتو أو مد كاب بحسن ويدو أنا مد هالكن كاب بحسن ويدو وهذا هالكن كوبلي جريس ولا سام ما حكى لا إلا يجلا وأنا ذكي إلا وين أنا أضل العقل والفاية أنت راتك صوغش قبل حاجة لعيت صار شخص ثاني
lacag adoo walfaaya iyo adoo bistoolo walfaaya bistoolo ama qundo ama maaragta bandooyin waa illegal qof walba anaga naga mida oo lacag asoo walfaaya la arko ama hub la watan kulligeen waajib waxaa nagu ah inaan Facebook community standard ku dacweyno oon sheegno markaas wuxuu kala leeyahay category ku habboon ku dacweyno qoraal laga saaraa wallahi ama 30 bariyaal la xiraa hadda asaga daalac loo raacana alxamdulillah lacag aad tagtay ma jirto lacag kaasha ood haysan karto guriga haysan karto mumkin ka badan ma haysan karto mumkin dirniinta meesha la soo gasho ma walfi kartid is waa reebanta mamnuuc waaye هذا الشرعي هذا قرنا يا اسمه الدارينيش أما dadka masaakiinta ah oo ina baan ka arabta ina baxsatano ana qadan talab baxsada ma nihin dad badan oo wax barta oo intelligence ay sareyso ayaa nagu jira marka barnaamijka inta soo soo gabagabayna intii aan rabay daqiiqadan dhaafay please iga raali noqo salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inta barnaamijka lamid ah ku kulmi doona